السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أولا ريال وعيسى محمود آدم. waxaan halkan ka cambaaraynayaa falkii maanta ka dhacay deegaanada SSC, kaasoo ku saabsanaa boqor burhaan, boqor muuse, boqorka beelaha daarood, oo magan uga noqday Somalilan inuu ka qayb galo aaskii garaad Abshir Saalax. Somalilan inay soo farageliso aaska garaadka dadkeedii baa diiday, dadkii garaad ku dhashay baa diiday. waxaan la yaabanahay waxaa boqor burhaan ku kallifay inuu isagu magangeliyo ugu tago Somalilan, halkaa ay ka geliyaan buuhoodle iyo balecad, iyagoo galbinaya ay halkaa ka geliyaan, xuduudda sii taagaan, isagoo heli karaayay inuu meelo kale kasoo galo. dhulka ilaahay waa badan yahay, meelo badan buu kasoo geli karaayay. hadduu waayona waxaa ka hufnayd oo kana sharaf badnayd, uga mudnayd isaga cimaamad ummad dhan buu sitaa, waxaa uga mudnayd inuu halkiisa ku negaado, waanu ka qayb gelin aaska. balse nasiib darro, boqorku meel buu kaga dhacay dadka uu boqorku u yahay. dadka reer si gaara ayuu meel kaga dhacay. waan cambaaraynaynaa farkaa waan cambaaraynaynaa. waxaan ka tacsiyadaynaynaa beelaha uu yahay boqorka ee daarood, intooda damiirka wanaagsan iyo dadnimada u saaxiibka ah. guddigood ma walaha, intooda damiirka wanaagsan iyo dadnimada u saaxiibka ah, inta sharafta leh ayaan ka tacsiyadaynaynaa. boqor burhaanna waxaan xusuusinayaa deegaanadan aad maanta waxaad samaysay, wixii walaalkaa sameeyey baad shaabad kusii dhufatay. deegaanada SSC waxaa dhibta u geystay, dhibtaa ilaa maanta haysata ee 8 sannadood lagu haysto dhulkooda, waxaa u geystay walaalka Cadda Muuse, jenaraal Cadda Muuse ayaa u geystay, iyo Cabdulaahi Yuusuf. iyaga ayaa kula galay beesha caalamka, nimankan maamulka Somalilan iyo dowladda Itoobiya, iyaga ayaa kula galay laascanood in lagu wareejiyo Somalilan. annuna dadkii deegaankan nahay ma mooganin, nagama qarsoona taas. waxyaaba kalaasi nooga baahbaahay, laakiin nagama qarsoona. nina godobtaa waa noognahay. marka waxaa aad looga xumaado maanta waxaad samaysay inaad walaalka dembiguu galay inaad sii shaabadaysid ayaad samaysay. aad iyo aad ayaan uga xumahay. halkaas waxa weeyaan adiga cimaamadaadii baad meel kaga dhacday, cimaamada aad seetid baad meel kaga dhacday. ma u daysid kuwan maamulkaa ku fillaayo habeenkii u dhuunta, habeenkii telefoon cabdiweliya habeenkii telefoonna kula hadla, iyo markii hore beriga loo haysan jiray kii ka horreeyey maxaa la ohan jiray faroole, kuwaas habeenkii bay ula gudaan oo telefoonna kula hadlaan. soomaad kale arrintiina meelahaasay ka yidhahdaan Somaliland waa kasoo horjeednaayo iyo hadal ilaa macnaa ya. marka inaad kuwa u daysid bay ahayd, laakiin maanta waxa weeyaan waa cimaamaddii baa kaa dhacday salaaxa. run ahaantii cimaamaddii baa kaa dhacday. ana arrinaan aad iyo aad uga xunahay. kuwan maamulka ya iyagu iska waa wax la og yahay. 8 sannadood bay halkaa joogtay. maalinta Somaliland markay waxay doonto samayso ay dadka dhibaato u geysato, hataa hadday iska aamusaan waxba ma ahateen, meelaha isla soo taagan Somaliland waa cambaaraynaynaa, waa ka waxaas waxba cid noqotani maayo. marka boqor burhaanow meel ayaad kaga dhacday. dadka reer SSCna waa godobay ku ogyihiin, maanta inaad isku daydid inaad shaabadaysid dhulka la haysto, dhulka laga haysto deegaanada, inaad isku daydid inaad shaabadaysid waa godob lagu haystaa.
waqtigeedana lagama xisaabtami doono ma mooganin dekaan kuu sheegay waxa weeye waa wax badan baa dee istuseen laakiin somaliland joogi mayso dhulka SEC waa ballantaas joogi mayso oo joogi mayso waanu iskaga filana waxbaa kala baaxsanaanta maanta xogaa aan kala baaxsanahay arki waana dhowdahay waqtigeena dheernahay marka waxaa kuu sharaf badnayd inaad iman aaska haddii aad meel kale aad soo martid mana baayin kun meelood aad kasoo geli karinahay baa jiray balacad iyo buuhoodle iyo dhulka xorta kun meelood aad kasoo geli karin ayaa jiray waan ka xunahay falkaa waa cambaaraynaynaa dhammaan dadka soomaaliyeed ee midnimada jecel meesha daarood ee uu burhaan u yahay boqorka intooda damiir kale dhammaan waan ka tacsiideynayna arrintaa falkaa foosha xun ee maanta dhacay boqor burhaan wuxuu yimi magaalada laascaanood in la haysta buu yimi halkaasaa lagu soo dhaweeyey somaliland baa ka gelbisay waxaa la sii taagay xuduudda alcayn gobolka alcayn ee buuhoodle ayaa la sii taagay halkaasuu ka tegaya marka waa cambaaraynaynaa falkaa intan dambe waxaan idinku soo qabanayaa si aad u aragtaan clipka booqashadii uu ku tegay meesha oo duuban baan idinku soo duwaya halkan dambe subxaanaka allahuma bixamdika astaqfiruka waatuubu ilayk asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu wafdi ballaaran uu hogaaminayo boqorka beelaha daarood boqor burhaan boqor muuse boqor yuusuf oo ay weeriyeen qaar ka mid isimada deegaanada Puntland ayaa caawa lagu soo dhaweeyay magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool kuwaas oo la filayo in maalinta bariya ay ka qayb galaan aaska marxuum Garaad Abshir Saalax Maxamed oo lagu aasi doono deegaanka Bilacad iyadoona boqorka iyo wafdigiisa lagaga hortagay meel ka baxsan magaalada Laascaanood waxaana ka qayb qaadanayay soo dhaweynta boqorka isimada waxgaradka qaybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan magaalada Laascaanood waxaana goobta ku sugnaa wakiil Garaad Jaamac Garaad Ismaaciil Maxamuud Guhaad Garaad Cabdisalaam Garaad Maxamed iyo sidoo kale Garaad Cabdilaahi Guuleed dhammaan ismadii ka hadashay goobta ayaa ku soo dhaweeyay magaalada Laascaanood waxaana ka mid ah hadaladoodii ku soo dhawow magaalada Laascaanood waxaan wakiilkii Garaad Jaamac insha Allah waxaa jooga ismadii kale waxaan ku soo dhaweynaynaa farxad iyo barwaaqo iyo gobolkiini ma hagaag qeyb ku noqonaysaa insha Allah ta'ala صورنا حاضرتان سو دوينا boqor burhaan boqor muuse iyo waftiga ballaaran ee uu hogaaminayo ee ka qayb galaya aaska ama duubta Garaad Abshir Saalax ka dhici doonta Ballicad baanu halkan waftiga ku soo dhaweynaa caawa xubleena ay soo dhawaada kuwa dhulkiini boqor iyo waftiga ballaaran ee hogaaminayo oo socda tacsidii iyo duubtii Garaad Abshir Saalax waxaan leenahay soo dhawaada waa idinku soo dhaweynaadna waa idinku mahadcelinaa safarka dheer aad soo marteen ilaahayda ka jasaasiiyo allahna ha u naxariisto dhimashadii Garaad Abshir aynu u socono intaas baan uga baxaynaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu idinkana soo dhaweynta waa idinka mahadcelinaynaa garaadkana allah u naxariisto soo aasayna insha allah waana idinku waajib aad baad noo mahadsantihiin waan soo dhaweynaa gobolkiini baan idinku soo dhaweynaa boqor burhaanna waxaan nasiib wanaagno waa markii ugu horeysay ee uu yimaado gobolka Sool ku soo dhawow boqor waa gobolkaagii waxaad u timid dadkaagii qalbi furan baan ku soo dhaweynaa gabagabadii boqor burhaan boqor muuse boqor yuusuf ayaa uga mahadceliyay bulshada ku dhaqan magaalada Laascaanood sida wanaagsan ay u soo dhaweeyeen iyadoo waliba ay tahay xilli habeenimo wuxuuna boqorku sheegay in marka laga soo laabto aaska marxuum Garaad Abshir Saalax uu ku soo laaban doono magaalada Laascaanood iyadoo gabagabadii boqorka loo galbiyay guriga uu Garaad Jaamac Garaad Ismaaciil ka degan yahay magaalada Laascaanood halkaas oo sharaf loogu sameeyay boqorka iyo marti sharaftii la socotay marka hore garaadada iyo wakiilka garaadka iyo khiyaarta kale cuqaasha dhalinyarada saxaafadda dhammaantiin waxaan idin leeyahay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu aad iyo aad baan ugu faraxsanahay aad iyo aad baan ugu mahadsantihiin soo dhaweynta qalbiga wanaagsan ehelnimada iyo sida wanaagsan oo aad waqtigan habeenimada oo sagaalkii habeenimo ay dhaaftay sida noogu soo dhaweyseen meeshan hadda aynu joogno
runtii waxaan ka cudur daaranaynaa soo daahidii aan soo yara daahnay waxay ahayd inaan waqti fiican oo iftiinan soo gaarno si aanu dadka iyo dalka iyo kulliga u aragno insha allahu taawuna way wada joogaynaa soo noqodka markaan aaska ka soo noqono baynu si fiican isu arki doonaa mukhtaar cabdi jaamac warbaahinta SBC laascaanood calanyow dadkii ku raba dunidaba kasii tegaye maxaan ku tarayaye taydaba u meeliye dalkoodii loo diido dulli iyo dhib weyn qabo dalkabiyo xanuun helayo la dilaya baanahaye waxaan jirinba dadka lagu qasbayaye shacabyahow wax noo daranba dusha nala ka saarahaye isticmaar la soo dirayba madax lagu dalbayaye dad qaxooti loo didiyo qarankoodii u dumayo damaciyo qabiil degayo badda lagu daranaye waanala dagayayo lesku keendirayayo dulli iyo qabiil daranba dadka lagu hogaanshaye soomaaliya ha noolaato ha israacdo astaanteenu waa jeexan tahay baati kama aan dhigeen aniga suuqa dawladda waxaan faraa in ganacsada loo sheego baatiga haweenka iyo xirtaan iyo meelaha lagu xirxiro in laga daayo